عدين موقفka beesha baadacade iyo joojin wada shaqaynta kala dhaxaysay madaxweynaha Hirshabeelle shirweynaha wada tashiga beesha baadacade oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiinta aqoon-yahanada ganacsatada dhalinyarada haweenka iyo qurbajoogta beesha oo ka dhacay hotel SYL 4 Agoosto 2017 waxa ay isla garteen kadib markaan aragnay number 2 hamiga shacabka deegaanada Hirshabeelle ee ku wada noolaanshaha nabad iyo gaaritaanka dawladnimo ku salaysan daadejinta maamulka saldhigna u tahay dib u heshiisiin iyo cadaalad. number 2 nidaamka hadda uu ku socdo maamulka Hirshabeelle oo aan ku tixgelinin cadaaladda iyo saami qaybsiga beelaha degan deegaanada Hirshabeelle oo ay si weyn uga muuqato sadbursi loo samaynayo beesha uu ka soo jeedo madaxweynaha wuxuu si aan mas'uuliyad ku jirin ugu takrifalaa awoodda dawladda. number 3 maamulka Hirshabeelle oo aan wax horumar ah ka samaynin dhismaha dawladnimada maadaama uusan madaxweynuhu ku sugnayn caasimadda iyo maqnaanshaha hanaan wada tashi iyo tixgelin oo cadaaladda beelaha kala duwan ee deegaanada Hirshabeelle. number 4 kadib markaan aragnay in nidaamka cadaalad darrada ah ee ay wax ku socdaan inay keeni karto is-aaminaad darro iyo dib u soo noolaanshaha colaadihii sokeeye ee gobollada ka jiray beesha baadacade oo ka walaacsan dhaqamada soo noqnoqday ee madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo aan ka turjumaynin higsiga shacabka Hirshabeelle waxa ay soo jeedinayaan number 1 in aysan suurtageli karin in shacabka deegaanada Hirshabeelle ay raalli ka noqdaan sadbursiga cadaalad darrada iyo iska horkeenida shacabka deegaanka. number 2 waxaan ka digaynaa in dagaalo sokeeyo ka dilaacaan Hiiraan oo uu mas'uul ka yahay Cali Cabdullaahi Cosoble iyo maamulka sida qaldan ee cadaalad darrada ku jirto loo soo magacaabay. number 3 waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beelaha deegaanada Hirshabeelle ay ka qaataan go'aan midaysan dhaqamadan ka soo horjeeda rabitaankooda iyo nabadda deegaanada Hirshabeelle. number 4 in xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle ay qaataan kaalintooda isla xisaabtanka ayna hor istaagaan dhaqamadan wax u dhimi kara nabadgelyada iyo xasiloonida Hirshabeelle. number 5 dawladda federaalka shacabka Hirshabeelle iyo beesha caalamka waxaan ku wargelinaynaa in Cali Cabdullaahi Cosoble mas'uuliyaddeeda uu qaadi doono haddii uu dhiig ku daato maamulada qaldan ee uu Hirshabeelle ka magacaabay. beeshu waxa ay joojinaysaa dhammaan wixii wada shaqayn ah oo ay la lahayd maamulka Hirshabeelle inta laga xalinayo tabashooyinka beesha. wa billaahi tawfiiq. bismillah waxaan rabaa inaan wax yar ku daro anigu go'aan geesinimada anaa qaatay qofkuna markuu dib ninkii ku darsada dambasiisa ka carara dib ninkii soo arkaa wax ka dhihi kara anigu anaa baxay beledweynaan tegey 2 habeenaan soo joogay 2 maalmood xitaa waxaa adkaatay in Cali Cabdullaahi anoo wasiira xildhibaan ah inaan la kulmo aaday u adkaatay isagoo markaa diidan waxa meesha ka socda inaan faragelin ku sameeyo oo aan wax ka bedelo isagoo diidan si ay tiisa ugu dhaqan gashay albaabadu xirtay marka aysan la yaab idinku noqonin isagoo wasiir u ah haddana meesha ka hadlaayo tan beesha igala weyn aniga Cali Cabdullaahi xumaantiisa iyo samaantiisa. waa billahi tawfiiq. ujeedka shirkan wuxuu yahay waa arrin nin la yiraahdo Cali Cabdullaahi Cosoble aniga shakhsiyan kuma ixtiraamayo titlekiisa madaxweynenimo oo loo igmaday kuma ixtiraamayo waxaa jiro ninka markuu ku ixtiraamaa la ixtiraama waxaan leeyahay waxa uu dhisay waa baadil waxaan ka shaqaynaynaana oon u taaganahay maanta Cali Cabdullaahi waxaad gashay kala qoqob
waxaad isu beddeshay hogaamiye kooxeed hogaamiye qabiil sidaas darteed waxaan ku caddaynayaa in maamulkaaga aanan la shaqayn doonin annagoo wada jiro maadaama aad ka baxday caqdigii iyo heshiiskii la galay sababtii aan kuu doorannay dib u heshiisiin iyo wanaag inaad ka shaqayso ood isu keento bulshooyinka labada gobol ayay ahayd waad ka baxday ballantii haddee ballan ninkii buriye ma filayo in annaga aan wax u fulinno wax uu rabana uu naga samaysto ma dhacayso sidaas darteed beesha baadacadde een matalno dhammaan siyaasiyiinta halkan isugu timid ee wasiirka hogaaminayo dhaqankeennii dhallinyaradeenni gabdhaheenni waxaan si cad u caddaynaynaa ugana digaynaa bulshada hiiraan iyo shabeellada dhexe ku nool aan matalno wax canshuura oo ay siin karaan cali cabdulaahi maamulkiisa ma jirto wada shaqayn dhow ay la yeelan karaan ma jirto waxa uu taagan yahay waa isku dirka beelaha ka soo jeeda labada gobol dan kale uu leeyahay ma jirto dee nintiisa gabay annagana ma adeegsanayo tiisuu gabay tiisa daryeelaha mid kale ku daraa la yidhi cali cabdulaahi waxuu qaadi karaa ma jirto mas-uuliyaduu qaadi karaa ma jirto waxaanna ku fadhiisinaynaa kursi la eg asaga kursigaan ma qaadi kara cali cabdulaahi wuu ka soo bixi waaya waajibkiisa sidaas darteed waxaan u celinaynaa kursi la eg rag mas-uuliyadaas qaadi karaan keenaynaa waxaan leeyahay oon rabaa inaan idinkaga mahad celiyo kasoo qaybgalkaa kasoo qayb gasheen iyo sida aad meesha u soo buuxiseen waxaan leeyahay oo kale ka raalli ahaada khudbadihii aad rabteen iyo soo dhoweyntii aad rabteen waan ognahay inaad xamaasadaysantihiin waan ognahay inaad rabtaan qof walboo beesha ah ama yimid dadkii uu matalayey ama uu afkii reerka annaga ku hadlayno lama wada hadli karo siyaasiyiin badanaa joogto sidaas darteed waxaan idin leenahay ka raalli ahaada inaanad codkiinna halkan ka jeedin karin adinkiiyo miidiyaas ku hari doono wixii aad rabtaan u sheega laakiin waxaan isku ognahay lagama bixi karo war murtiyeedna waa geli doonaa insha allah go'aankii beesha oo cad oo la soo diyaariyey saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay shirarkii socday ka soo baxay halkana laga akhrin doonaa waana ku qanci doontaan insha allah waxaan idinka rabnaa oo keliya waxa waaye sidaad u dhan tihiin dal iyo dibad hiiraan iyo shabeellada dhexe annagu maamulkaas maamul soomaaliyeed oo aan ka qayb qaadanay oo wax ka dhisnu ahaa si qurux badanna aan uga qayb qaadanay si qurux badanna aan uga qayb qaadanay ma rabna annaga inay dhibaato gaarto maamulka waana wada khuseeyaa jiritaankeenna iyo maxaa horumarkeenna wuxuu ku xidhan yahay wada shaqayn iyo wanaag sidaas darteed waxa aan halkan u taaganahay waa qaadaca cali cabdulaahi iyo riditaankiisa waxaana idiin xaqiijinayaa dhammaan reer hirshabeelle cid kastoo ay tahay maamulka cali cabdulaahi inuu fashilmay in la ogol yahay lana ridi doono si wada jirana loo ridi doono intaas inaad ku seexataan inta keliyaan u taagannahayna ay tahay ilaa cali cabdulaahi kursi laag lagu fariisiiyo inaan abaabulkan wado waxaan aad idinku dhiirigelinaya waa xamaasadaysnahay ma raba inaan xuduudda ka baxo kelmadihii oo dhan waxay ku kooban yihiin warqad A4 ah iyo go'aankii reerka waxaan idin leenahay annagu dulmina ma samayno dulmina ma qaadano bulshada nala degan nabaday nagu yaqaanaan wanaag iyo horumar iyo maxaa la yidhahdaa daris jacayl ay nagu yaqaanaan haddee cali cabdulaahi wuxuu samaynaya ku celcelin maayo aad iyo aada uga xumahay wuxuu sameeyey waana wax shayb ku ah asaga aad foolxumo ugu ah shaksiyan cid la qabtaana ma jirto reer hiiraan waa waraystay ba iyo boqorkoodaan waraystay
reerka uu ka soo jeedaa waraystay siyaasiyiintooda waraystay raalli kama aha waxa uu sameeyey cali cabdullaahi waa ku keligiis cid ku difaacaysana ma jirto he has to go waa inuu tagaa cali cabdullaahi waa inuu tagaa waxaan idin leeyahay oo ku dheeraaday raalli dhowr daqiiqo ahayd wixii aan rabay inaan hadlo aadaan ugu fogaaday waxaan isku ognahay ilaa cali cabdullaahi salka dhulka loo dhigay inaan lala shaqaynin maamulka xaaraanta ah oo uu matalo wasalaamu calaykum